aan tusaale yar idin siiyo nimanka reer galbeedka la yidhaha markay wax baadhayaan marka wax la rabo in laga go'aan qaato waxa la sameeyaa marka hore baadhitaankaasoo ixsaa'iyaad leh oo taxliilaad istintaajaad wax walba wata baadhitaan rasmiya baa la sameeyaa baadhista dabadeed ciddii baadhitaanka samaynaysa iyo mas-uulka dadkii ahaa markay go'aan ka qaataan baadhitaankaasi waxay u gudbaan jaranjarrada labaad oo ah bulshaweynta sida loo qanciyo iclaamkii in markaasi qadiyadda tan uu qaadaa dhigo oo la soo faafiyo oo la soo dhigo oo si wanaagsan loo fahmo dabeetana waxay yimaadaan martabadda saddexaad oo ah sidii loo fulin lahaa maalan aan ku siiyo tusaale maalan daraasaadka laynagu hayo inagu isma ogin inagu waynu iska soconnaa maalan mujtamaca soomaaliga markay ka warramayaan waddan ka mida waddannadan reer galbeed ama ceebaa loo raadinayo ama la baadhayo ama waxa kan waxay yidhaahdaan xagga shaqada marka laga eego bay yidhaahdeen waa bulsho aan howlkar ahayn waxay ku cilleeyaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaara inay shaqeeyaan waxa lagu aqbale lagu keenay waxa ka mid a inaad maanbaawar noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yahay dadka waddankala shaqooyinka sare haysanaya laakiin dee shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato oo adna mujtamacu wax kaa faa'iido laakiin uma diyaar aha ninka soomaaliga ahi waa mujtamac bay yidhahdaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay yidhahdaan luqada aan hore u fahmi karin waa mujtamac bay ku tilmaamaan xataa hay-adiisu bay yidhaahdaan suuqa shaqada kama socoto yacnii marketingka reer galbeedku qof uu yaqaanaa jira ku yaroo gadhxiira oo taay xidhan oo fayl yar soo xidhan waa markuu shaqo doonayo laakiin ninka soomaaliga markuu imaado isagoo gadhkiisii wata oo dee nin soomaaliyeeda oo isa soo taago oo habarta meesha joogta aanu salaamaynin haay laga yaaba inuu ku yidhahda laakiin aanu gacan qaadayn maxaa yani waxay leeyihiin suuqa shaqada kama aha bay yidhahdaan qof tanaafusba ka geli kara hay-adiisa aanad ahayn bay leeyihin waayo madaahirtu iyagu waxay wax ku qiimaystaan bay ka mid tahay maalan xagga tacliimta waxay u arkayaan mujtamac markiisii hore aan tacliim hore wadanin waddannadu yimi bay leeyihin dadka waaweyne soomaaliyeed ee yimi bay yidhaahdeen boqolkiiba 70 afka waddanka may baran boqolkiiba 70 bay yidhahdeen afka waddanka may baran carruurtoodu bay yidhahdeen boqolkiiba 80 macallin gaaraba u baahan yihi inay dawladdu macallin kale ku kabto waayo waxa ka lumay daraasaadkii iyo wixii istaba socdiyo wixii oo dhan waxay yidhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidataa oo afka iyo waxan maba barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka wakhtigiisii imanayay daraasaadkana axad alikhwa baa igu kaalmeeyey markay timaaddo wakhtigeedii inay uur leeday ay tidhaahdo sanadkan ma geli karayo sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqadda dambe loo soo diro inay noqoto wakhtigii ay umulaysay wahaluma jara waxay iyagu ku warramayaan yacni kuma fiicna bay leeyihin baabkan dhaqankooda ijtimaacigaa bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaha la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya waxbuu samaynayaa maalan waxay yidhahdaan false separationka beenbeenta ay yaqaanin baa la leeyahay ma aha dad habiya soomaalidu waxay haysataa waxaan dadkan inay habi yihiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaaleed waxaynu naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa ay daraasadooda dhammaystiraan oo isqanciyaan mooyaane sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa maalan nataa'ijtay soo saareen waxaa ka mid ay u arkayaan mujtamaca soomaaligii bay yidhahdeen waa mujtamac muqliqa oo raadikal ah waa mujtamac xidhan oo raadikal ah raadikalka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababeeyaan waxay ku sababeeyaan kow waa mujtamac xijaabka xidha bay yidhaahdaan qofka xijaabka xidhan le dumarkeenna xijaabka xidhan le waxay u haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay maalan xijaabka markay ka warramayaan innagu qadaayaad waxaanad ogayn baa lagu tirinaya oo adigu wanaaggaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan maalan waxay dhahaan booliiska
inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa boqolkiiba 85 yani marka booliiska la tago ee la baaro faylkiisa ee la baaro wasaa'iqda dumarka xijaaban muslim kale degan waa boqolkiiba 15 way marka la yiraahdo sawirka keeniyada sawirkeedu iska qaawiye keentaa laakiin dadka sawir keensaday aan wada xijaab leh macnaheedu waxa weeyaan waa Soomaali 85% bay dhahan kuwaas waa kuwa kan مثلا waxay yiraahdaan iskuul islaamiga meelahan laga furay 85 qof baa dhigta bay yiraahdeen 82 baa Soomaaliya bay yiraahdeen waa mujtamac markaa meel u socda 85 qof haday dhigato 82 uu Soomaali yahay waa mujtamac radical ku ka muuqdo iyaga nadaradooda waxay taagan yihiin iskuulada bay yiraahdeen hadii qadaayaadka ardadu ay ka doodeen diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo midaan violence ka yimaada hadii goor hadii diin wax laga sheego midaan islaamka hadii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaaba yiraahdaan ihsaa'iyadku waa Soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalك ba wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen class aska afafka loo dhigtay Soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsan waxyaabahaasi waxay yiraahdaan midaan kale bay yiraahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa Soomaalida si waxaan aragnay bay yiraahdeen nooc min mintidnimo qaran xijaabniino halkan xijaabka ku qaatay bay yiraahdeen tusaale ay barkay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaab sidan laakiin halkan uu ilaahay wax ku fahamsiyo xaqan xijaab ku qaadatay waxay leeyeen waa cagsiga markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeeda bay u socdaan ashyaada soo dhamay maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca Soomaaliga inuu yahay alwariith sharci lilusuliyya dadkan usuliyada la yiraahdo radicalka dadka dhaxlaya xaq u leh bahasha daba taaganinayn iyaga sadaradeed baa laga sheegay mustashriqiintooda mid ka mid inta khudbad jeediyay inuu kaga waramayay Soomaaliga dadka la yiraahdo inuu qof gaala lahayn hatta buu yiri shuuci ha hado liberalism ha waxa aaminsanaado meel uu buu hadana bahasha kaga sii naban yahay buu leeyahay waxay naga qaateen natiijo oranaysa waa mujtamac mutafarriqa haddaad tiraahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan 2,000 ururo yaryar 2,000 wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti oranaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimuqraafigiis kobciisa badan bay leeyihiin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sadaradeed bay midna ihsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ihsaa'iyaad laga qaaday bay yiraahdeen 312 caruura muddo sanada ku dhashay xaafadii 312 caruur ee xaafadaasi ku dhashay muddo sanad gudihii 154 Soomaali dhashay bay yiraahdeen 157 na ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 312 qof ku dhalatay 154 uu Soomaali noqdo 157 na dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ihsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhtaa'deena iyo gafafkeena laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeena oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeena inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi